dowladda magaalada Muqdisho ka talisa oo laf dhuun gashay ku noqday heshiiskiisa afgarad ee kala saxeexdeen dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya kowdii bisha koobaad ee sanadkan ayaa geed gaanba u kortay sida ugu horimaan lahayd heshiiskan balse dadaalkeedii waxa ku soo dhamaaday dhan dabagaale iyo dhaysbakayle heshiiska ay dowladda Soomaaliya sheegtay in la gashay dalka Turkiga ayaa dhawaan xaqiiqadiisa daha laga raway iyadoo loo sharaxay si ka duwan sidii ay sheegtay Soomaaliya sida uu sheegay wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya heshiiskan ayaa u galeen sababo la xiriira inay ku difaacaan badda ay sheeganayaan ee Soomaaliland oo ay ka difaacaan Itoobiya balse saxaafadda Turkiga ayaa faafisay in maamulka xamar uu isku qaaday dowlado badan oo caalamka si uu uga helo taageero dhanka militariga balse waa uu ka waayay baa leeyahay wax heshiis ah oo badda ku saabsan dowladda Soomaaliya ayaa si gaar ah xidhow la sameysay dowladaha Masar Sacuudiga Imaaraadka Qatar iyo Mareykanka intii aanay Turkiga isu dhiibin kuwaas oo ay kala soo noqotay gacmo maran saxaafadda Turkiga ayaa sidoo kale sheegtay in heshiiska Turkigu aanu wali ahayn mid dhameystiran oo shaqo badan u hadhay kadibna baarlamaanka la geyn doono waxa kale qodobada hordhaca heshiiska ku cad in aanu jirin wax difaac militari ah kaliya uu yahay heshiisku khayraadka badda saxaafadda Turkiga ayaa waxay sheegtay in laga yaabo Turkigu inuu isu soo dhaweeyo Itoobiya iyo Soomaaliya si Itoobiya saldhig badeed uga hesho Soomaaliya qodobada haddaba la sheegay inay ku heshiiyeen Soomaaliya iyo Turkiga ayaa kuwan kow maalgashiga dhanka khayraadka badda laba in haddii loo baahdo la qorsheyn karo hawlgallo wada jira badda iyo hawadaba kuwaas oo lagu difaacayo khayraadka in la dhiso lana hawlgaliyo maraakiib dekado iyo kaabayaal kale in hawlaha badmaaxyada la iska kaashado in laga wada hortago waxyaabaha halista ku ah arrimaha badda sida burcadbadeeda taariibta iyo kalluumaysiga sharci darrada in Turkigu badda Soomaaliya ka dhisan karo waxa uu doono kana samaysan karo goobo dhowrsan in Turkigu ciidanka Soomaaliya siiyo waxbarasho diin barida iyo tababar in Soomaaliya laga caawiyo dhisashada adeegyada ilaalinta xeebaha in Soomaaliya loo cusboonaysiiyo ciidan badeed iyo aqoonta ilaalinta nadaafadda badda warbixintan qortay haddaba saxaafadda Turkiga ayaan meel lagaga sheegin in heshiiska ay ku jirto in Turkigu ciidan ahaan ka caawiyo Soomaaliya dagaalka ay doonayso in la gasho Itoobiya iskabada in Itoobiya la soo hadal qaaday Itoobiya Turkiga ayaa waxa ka dhaxeeya xiriir soo jirano qoto dheer kaasoo gaadhaya 100 sano waqti xaadirkan ku dhawaad 200 oo shirkado oo Turkiga ah ayaa maalgelin ku sameeyay dalka Itoobiya iyagoo shaqo abuur u sameeyay in ka badan 30,000 oo Itoobiyana dhaqaalaha uu Turkigu ku maalgashanayo Itoobiya ayaa kor u dhaafay 2.5 bilyan oo dollar sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalkaasi ee Anadolu Turkiga ayaa sidaa ku noqonaya dalka labaad ee maalgashiga ugu ballaaran ku sameeyay Itoobiya marka laga tago dalweynaha Shiinaha